dadweyno dantayne daawadayna weeye aan dabar goyno gudniinka. munaasabadda maalinta caalamiga ah ee u dulqaadasho la'aanta gudniinka gabdhaha oo lagu gorfeeyay qaabka loo joojin karo gudniinka fircooniga oo ah caado soo jireena oo aad u xun isla markaana ay hablaha kala kulmaan caafimaad darro nololeed oo xitaa sababi kara dhimasho ayaa waxaa ka qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliya dhaqaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo dhaqaatiirta madasha ka hadlay ayaa ugu horeyn sharaxay dhibaatada caafimaad iyo midda nololeed oo ay habluhu kala kulmaan gudniinka fircooniga. gudniinka gabdhaha waxay ka mid tahay caadooyinka soo jireenka ah ee dadka Soomaaliyeed wuxuuna u keenaa gabdhaha caafimaad daro khatar gelin karta xataa noloshooda. gabdhuhu waxay dhibaatooyin gudniinka ugu daran la kulmaan haddii Ilaahay soo dhaafiyo waqtiyada ugu horeeya oo dhiigbax ku dhiman karaan waqtiga caadada ku dhacayso maalintii aqalgalayso iyo maalintii ilmaha dhalayso. daraasaadkii ugu dambeeyay la sameeyay 2020 oo la wareystay gabdhaha da'dooda u dhaxaysa 15 iyo 49 waxay soo sheegeen in 98% gabdhaha Soomaaliyeed la guday. dhacdadii ugu xumeyd ee hadda dhacday waxay tan ugu dambeysay tahay 21 December gobolka Gedo waxaa ka dhacday in 21 gabdhood hal maalin la guday oo kulligoodna gudniinka fircoonka lagu guday. kulligoodna waxay ahaayeen gabdho ku nool xeeraha barakacayaasha. gabar ayaan hore noola keenay maama loo geeyay maamada indhaha si fiican wax mooga arkeen sakiin ay qaadatay everything ay ku sii sameeyay macna bleedina meel kasta ka socday catheter waa geli weynay gabadhi way shoogsaneed macna waxay nagu noqotay inaan caawino gabadha in oo loo wac anesthesia oo gabadhaas OT-ga aan ku repair garan because way shoogsaneed bo. WHO waxay aqoonsan tahay inay tahay human violation macnaheedu xayuubin iyo ku xadgudub oo lagu sameeynayo gabdhaha yaryariska ah iyo mulsooyinka meesha ay fadhiyaan anaga aan ugu eedeeyaa in anaga ibnaha gabdhaha aan gudno taa marka waa inaan joojinaa qaab kasto ay tahay ba waa in la joojiyaa ilaan dhibaatada ma dhognahay waana la kulugnaa naag la guday waad ogtihiin markay dhalaysa dhibaatada ay leedahay iyo tii aan la gudinna ay laba ay kala yihiin. wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Maryam Maxamed Xuseen oo munaasabada soo xirtay ayaa balan qaaday inay ka wasaarad ahaan sameyn doonaan olole weyn oo looga hortagayo gudniinka fircooniga oo ay sheegtay inuusan wax sala ku lahayn diinta Islaamka. anaga gudniinka fircooniga ma ahan gudniin anaga maxay ahayd dhaqan aan u leenahay waa wax dibadda nooga yimid waxaan maanta anagoo ku hadlay magaca wasaaradda caafimaadka aan halkaan ka wada ballan qaadaynaa inaan campaign sameeyno oo barnaamijkan aan ka hortagno sababtoo ah wuu soo noqnoqday aad iyo aad ayaa loogu howlgalay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha la shaqeeya WHO iyo UNICEF si ay barnaamijyadan looga hortago laakiin wili caadadii meelaha gobollo qaar ayay ka sii jirtaa sida hadda maanta riboorka aan ku helayno waxaan rabnaa campaign inaan u istaagno sidii aan u cidir jari lahayn. Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho.